waxaa maanta magaalada Muqdisho asqaran lagu sameeyay Allahu naxariistee Sheekh Maxamed Sheekh Ibraahim Baardheere oo kamid ah culimadiinka Ahlu Sunnah wal Jamaaca sheekha oo ku geeriyooday dalka dibadiisa ayaa meydkiisa maanta laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho. مسؤولين كترسان دولة فدرال الصومالية وهو رئيس الوزراء حكومة الجمهورية فدرال الصومالية مدير حمزة عبد البراء وزير كوريا رمه الدين وقافت شيخ عبد القادر البغدادي وزير كترسان دولة فدرال الصومالية يقار كمدة حلبان هذا برلمان الصومالية أيا كقريب قال جنازة الله نحرسته الشيخ محمد الشيخ إبراهيم بارديري وكمدة علماء الدين كأهل السنة والجماعة وزراء الجمهورية فدرال الصومالية أيام مرحوم كوسيفيي شخصي aad u wanaagsan isla markaana door weyn ka qaatay fidinta diinta islaamka isla markaana uu adeegay dariiqada iyo diinta islaamka waxaana Allah uga bariyay in jannatul firdaws uu ka waraabiyo ehelka iyo qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna uu sabar iyo iimaan ka siiyo